dowladda Iran ayaa subaxnimadii hore ee saakay weerar gantaal ah ku qaaday bartamaha Israa'iil taasoo keentay in uu dab ka kaco xarunta Holland iyadoo dhowr weerar oo Israa'iil laga soo sheegay magaalada Isfahan oo ay ku taalo xarun cilmi baariseed oo muhiim u ah barnaamijka nuclear-ka. wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iran Abbas Araki ayaa sheegay in barnaamijka nuclear-ka Iran uu yahay mid nabadeed dalkiisana uu wali u furan yahay wadahadallada diblomaasiyadda balse waa in marka hore la joojiyaa weerarada Israa'iil. Iran ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in aysan dib u bilaabi doonin wadahadalka ku saabsan barnaamijkeeda nuclear-ka intii uu socdo weerarka lagu hayo saacado kadib markii wasiirka difaaca ee Israa'iil uu ka digay khilaaf daba dheeraada. dhigiisa Israa'iil Eyal Zamir ayaa khudbad u muuqatay ama muuqaal ah uu ku sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay olole daba dheeraada wuxuuna ka digay maalmo adag oo soo socda. sidoo kale Iran ayaa sheegtay in dastuurkeeda uusan ku jirin ama aysan ku jirin kelmadda isdhiibidda ah taasoo la micno ah in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil. halka hogaamiyaha Iran oo u jawaabaya Trump ayaa waxa uu isna si kooban u yiri waxa uu hayo Trump ha soo daayo.